doorashadaada hadday wanaagsanaato dhamaadkeedan qodobadan iska fiirinin inta aadan guursanin ka hor ama qofka aad rabtid inaad nolosha la wadaagtid waxay noqon doontaa noloshaada mid qalqal badan gasho sidoo kalena aad ku biirtid xiriir adag qofka oo yahay qof nafsadiisa ku kalsoon wuxuu awoodaa in uu ka doodo waxyaabaha uu rabo iyo waxyaabaha uusan rabin la talinayaa in aadan gelin wax calaaqaad ama relationship dhanka guurka ah inta aad ka dhisisid wax qof ma bedeli kartid inaad aamintid waaye بسم الله كسو دبادة يوتيوب دكتور إدل وأنيغو دكتور إدل وحانا هاي دكتورات سيدو كالي لطالية دانك عافيمادك مسكحدا إيو قويسكا إيو سيداد وهيل هيد عنتا عافيماد لو اسكو ديالي تران وحان ما انتك هادلينا موضوعات مهم هادي آذان قضبادان اسكا فيرينين انت آذان قورسنين كهور أما قفك آربتid inaad nolosha la wadaagtid waxay noqon doontaa noloshaada mid qalqal badan gasho sidoo kalena aad ku biirtid xiriir adag oo caafimaad aanan lahayn marka waa ku muhiim inta aadan galin xiriir ama qofka aad nolosha la wadaagaysid inta aadan guursanin qodobadan in aad si fiican iskaga fiirisid waxayna ku horseedaysaa in uu xiriirkaaga noqdo mid guuleysto oo caafimaad qabo sidoo kalena xasil ku dhamaado qodobka koowaad marka aad rabtid qofka lamaanahaaga in aad dooratid waa number 1 in aad taqaanid qiimahaaga qofnimaad iyo sidoo kale ahdaafta nolosha kaaga degan ama yoolalka aad nolosha ka leedahay qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah marka aad tahay qof qiimihiisa yaqaano waxaad marar badan ka taxadari doontaa inuu qofku kugu xadgudbo in xiriirkaasi lagugu dhibaateeyo sidoo kalena waxaa ka dhalanayso in aad kalsooni fiican ka heshid ahdaafta aad nolosha ka leedahayna sidoo kale waa inaad taqaanid marka aan ku leeyahay waxay kaa caawinaysaa qofka aad nolosha la wadaagaysid in uu qof ahdaaftaasi taageersan asna fahamsan oo kugu dhiirigelinayo kuu horseedayo in aad ahdaaftaasi gaartid inuu yahay qof maxaa la dhahaa ka gaaraya marka qof yoolal leh haddaad tahay waxaa fududaanayso ayadane hadafkaaga ah inaad qof fiican aad nolosha kala wadaagtid in uu noqdo mid wanaagsan marka waa ku muhiim in aad qiimahaaga taqaanid oo qof qiimihiisa yaqaana aad tahay midda labaadna waa inaad yoolal nolosha ka leedahay yoolasha aad ka leedahayna ee kuu cad yihiin oo aad taqaanid haddii kale waxay noqonaysaa qof la iska wato oo asiga la hogaamiyo oo la wado oo aan nolosha wax yoolna ka lahayn dhibkana way kugu sii badanaysaa qodobka labaad waa kalsoonida nafta dad badan oo inaga mid ah kalsoonida nafta marka laga hadlaayo aad ay ugu liitaan rag iyo dumarba mar haddii ay kalsoonidaada hooseyso waxaa adkaan doonto xiriirkaasi inuu noqdo mid guuleysto haddii uu guuleystana waxay noqon doontaa inuu xiriirkaasi noqdo mid toxic ah ama sun ah sababta u leeyahay waxay tahay markuu qofka yahay qof nafsadiisa ku kalsoon wuxuu awoodaa in uu ka doodo waxyaabaha uu rabo iyo waxyaabaha uusan rabin laakiin waxaa dhacdo markuu qofka isku kalsooneen in waxyaabo badan uu rabay oo noloshiisana muhiim u ah uusan ka hadlin ka doodin asagoo ka cabsanayo inuu qofkaasi weeyo si la mid waxaa jirto markuu qofka isku kalsooneen waxaa dhalan karto in qofkaasi la dhibaateeyo dhibaato joogto ah asna uu ka cabsado inuu qofkan waayo kalsooni daro uu naftiisa ku qabo sidoo kale awoodihiisa inuusan aaminsanayn amaba uu isku arko qof liita inuu yahay marka in aad naftaada ku kalsoon tahay waxay qurxisaa guud ahaan xiriirka haddii aad tahay qof aanan nafsadiisa ku kalsooneen waxaa kuula talinayaa in aadan gelin wax calaaqaad ama relationship dhanka guurka ah inta aad ka dhisisid kalsoonidaada marka aad kalsoonida naftaada dhistid bilow xiriirka aad rabtid qofka aad rabtid la wadaag kadib waad guurso haddii kale waxay noqon doontaa sida marar badan dhacdo qofkaas in iyo dhibaato badan ay kasoo gaarto dhanka qofka lamaanaha la marka waa muhiim in qodobkaasi aad iska adkaysid oo kalsoonida naftaada aad dhistid qodobkeena saddexaad waa in aad isku xirtid qiyamkaaga waxyaabaha valueskaaga waxyaabaha aan lagaa marin oo aan lagaa taabanin iyo nolosha afkaarteeda fikradaha in ay isku xirnaadaan waxyaabaha adiga aa aaminsan tahay iyo qofkan waxa aad ka aaminsan tahay wuxuu noqon karo sida diinta oo kale waxbarashada oo kale horumarka oo kale sababta taas aa u leeyahay waxaa waaye qofkaa nololaa rabtiin inaa isla wadaagtiin marka aa isku qiyam ahayn
oo adiga waxyaabo aad aaminsan tahay oo qofkan ee agtiisa wax qiimo ka lahayn isku dhicina wuu badan doonaa. afkaarta aad aaminsan tahay waa inay iska ag dhow yihiin, qasab maaha isku fikrin inay yihiin, laakiin qiyam marka laga hadlaayo waxyaabaha oo adiga aan lagaa marin oo lagaa taabanin oo aad ku dagaalamaysid waaye. tusaale ahaan oo kale runta qiyamkaaga inay ka mid tahay, asturnaanta inay qiyamkaaga ka tahay, qiyamkaaga ka mid tahay. qiyamka marka dhahaayo waxaa laga wadaa values, waxyaabaha qiimaha leh oo adiga aad haddii lagaa soo maro aadan ka hadlin. tusaale ahaan oo kale wiil ayaa tahay, waxaa rabtaa qiyamkaaga waxaa ka mid ah asturnaanta, gabar asturan oo xijaaban. waxaa la saaxiibaysaa gabar isqaawiso oo waxaad aaminsan tahay biri markaa isguursatiin in aad asturi doontid, waana qalad. marka hore qofka aad xiriirka la samaynaysid waa inuu waafaqsan yahay qiyamka aad nolosha ka leedahay. okay, gabar waxaa jirta ayadana sidoo kale, tusaale hadda usoo qaadano, gabadhan waxay jeceshahay runta oo kale. runta waxay ka mid tahay qiyamkeeda oo qof run badan waaye. so qofkii xiriirka ee la laheyd qof been badan waaye, been badan ee ku aragtay, waxay istiri waxaas wax la bedeli karo waaye, wax la bedeli karo, wax qof ma bedeli kartid inaa aamintid waaye. xirfadaasi qof walbo oo bini aadan ah muhiim ayay u tahay, bes relationshipka bes ma ahan, meel walbo noloshaada, shaqadaada, nafsadaada, caruurtaada, qoyskaaga, waalidkaaga, dhan walba oo bulshada ka yahay waxayna ka mid tahay xirfadaha nolosha. gurigaa laisku imaaday, jaceylku cunto ma noqonayo, wuxuu u baahan yahay, nolosha waxay u baahan tahay kala dambeyn iyo nidaam iyo mas-uuliyaadka in la kala qaato. waxyaabaha muhiimka ee daruuriga ah, okay, cibaadaadka oo kale marka laga hadlaayo kale, qofkan cibaadada kuma fiicno, salaadaha kuma fiicno, waa isla sheekaysataan, waad ku aragtay qiyamkaaga iyo waxyaabaha aa aaminsan tahay waaye, waa inaad ka fogaatid qofkaas waxaas hadduu ku fiicneen. ha aaminin inaad qofkaas bedeli kartid, because qof ma bedeli kartid, adi ma abuuranin, adiga ma dhalin, waalid ayaa ilmihiisa bedeli karin. marka waxyaabaha muhiimka ku ah noloshaada oo aad aaminsan tahay, afkaarta iyo qiyamka, waa in ay isku xiran yihiin qofkaasi. wiila isla sheekaysatiin, waxaa rabtaa inaad shaqaysatid, haddii aad guursatid, wiilka isla sheekaysatiin wuxuu aaminsan yahay gabar inaysan shaqaynin haddii la guursado ee gurigeeda joogto. macnaha waa in meel cad yani kala istaagtiin, hadhow inta isku dhac uu bilaaban lahaa, been in isku sheeg maaha. okay, waa isla sheekaysatiin, wuxuu kuu sheegay inuu jecel yahay ilmo badan inuu dhalo, inuu guursado inuu jecel yahay, inaa haddana beri saas aa kusoo geshid, haddana beri aa xumaatid, qalad waay. okay, wiilkan gabadhan ma ku fiicno, maxaa la dhahaye xiriirada yani akhlaaqiyaadkeeda ma wanaagsano, qof ceetin badan waaye, qof dagaal badan waaye, inaad dhahdid gabadhan markaa guursado way degi doontaa ama way xasili doontaa, idana qalad waay. macnaha marka waxaa ka wadaa afkaarta nolosha aad ka aaminsan tahay iyo qiyamkaaga waa inay iswaafaqsan yihiin qofka nolosha aa la wadaagaysid, si ay u yaraato biri isku dhiciina iyo dhibaatooyinkeeda. marka banaankis mare maradiisa geed ma qabsato. taasna waxay ku dhalan kartaa marka hore inaa horta adiga taqaanid maxaa qiyam kuu ah, maxaa nolosha ka aaminsan tahay, maxaase ka rabtaa nolosha inaad ka gaartid. haddaada ogeen hore muu soconaysid. marka haddii videoga hadda aad daawanaysid, sameyso waxyaabaha qiyamka ah, qofka nolosha aa la wadaagaysid kala hadal. xiriirka marka doorashada ama marka la shukaansanayo, waa ku jeclahay iyo saan inta laga wada hadli lahaa jecel, waxaa ka muhiimsan inaa nolosha iyo waxyaabahaas aad ka wada hadasho. qodobka afaraad waa daacadnimada iyo isku kalsoonaanta. qofkan hadduu yahay qof kalsoonidii ka dhimatay oo aanan kalsooni lahayn, oo macnaha kalsoonida laba loo kala qaadayo, kalsoonida uu qofkan kale u qaadayo, uu aaminsan yahay nin inuu xun yahay, nin walba oo dhibaato uu yahay, ama gabar inay xun tahay, sida waxyaabahaas oo kale. iyo sidoo kale kalsoonida, labadaas shay, kalsoonida iyo daacadnimada waa labada tiir ugu muhiimsan ee xiriir walbana ku guuleysto. sidoo kalena health relationship marka laga hadlayo ama xiriirka caafimaadka qabo waa tiirarka aasaasiga u ah. qofka aad shukaansatid ama aad rabtid nolosha in aad la wadaagtid waa inuu ahaado qof daacad ah. daacadnimada ka run sheego naftiisa, ka run sheego shaqadiisa, ka run sheego dareemihiisa. laakiin waxaa dhacdo gabar beenaa lagu soo xirgeliyaa, runaa lagu dhaqaa. yacni waxyaabaha oo baahay oo qaladaadka ay ka mid tahay.
marka waxaa loo baahan yahay qofkaas inuu noqdo gabar haddee tahay iyo wiil hadduu yahay qof daacad ah oo wixii lagu aamino ama taas waxaa ku ogaa kartaa tacaamulkiisa dadkiisa kale asxaabtiisa iyo familkiisa keligaa bis ma aha marka daacadnimada iyo kalsoonida waxaa waaye laba shay qof kalsoonida sidoo kale qofka inuu kugu kalsoon yahay uu aaminsan yahay inaad qof awood leh tahay qof wax soo saar leh aad tahay qof qiimo leh inaad tahay qof yacni kalsooni inuu ku aamino oo kale inaad qof bin aadan wax badan qaban kara inaad tahay qodobka shanaad waa qodob aad u muhiim ah waana xirfadaha ugu muhiimsan oo xiriir walba oo guuleysto uu leeyahay waxaa waaye qofka inuu yaqaano xirfadda xalinta khilaafaadka qofka aad ishukaansanaysiin markaad isku dhacdiin ama dhib uu idin dhex dhaco waa inuu yaqaano weyga wax loo xaliyo haddee tahay gabar marka ay xanaaqdo iska kaaceynayso iyo hadduu yahay wiil markuu xanaaqo shan biri telefoonka aan kaa qabanaynin labadaas qofba ma lahan xirfad xalinta khilaafaadka qoys bis ma xirfad xalinta khilaafaadka markuu qofka awood u leeyahay inuu xaliyo khilaafaadka wuxuu awood u leeyahay inuu noloshiisa hore usii wato marka xirfadaasi qof walba oo bin aadan ah muhiim ayay u tahay bes relationshipka bis ma ahan meel walbo noloshaada shaqadaada nafsadaada caruurtaada qoyskaaga waalidkaaga dhan walba oo bulshada ka yahay waxayna kamid tahay xirfadaha nolosha marka waa muhiim qofka nolosha la wadaagaysid siduu uu u xaliyo khilaafaadka muxuu sameeyaa hadduu yahay qof markuu xanaaqo ama dhib uu dhaco ku dhibaateynayo maxaa la dhahaye dhibkii sii weyneynayo dhib kale kusii daray jaanis kuu gaadayo marka hadhow waxay noqon doontaa markaa nolosha wadaagtiinne inay noloshaas kasii adkaato marka xirfadaha ugu muhiimsan oo qofka nolosha aa la wadaagaysid biri maadaama laba qof oo isla nool ee mar walba isku dhici doonaan waa muhiim labada qof buuxa u ah inay yaqaanaan sidee loo xaliyaa khilaafaadka ayadoo lisdhaabicin lisdhibaateenin muhiimadana ay tahay in wax la xaliyo in ku yeelan doonto midda lixaad waxaa waaye inuu ahaado qofkaasi qof karti leh mas-uuliyaddana agtiisa ay wax weyn ka tahay micno leh mas-uuliyadda markaa ka hadleyno rag iyo dumar way ku kala duwan yihiin waxaa dhacda marar badan mas-uuliyaad badan oo rag laga rabay inay gabdhaha qabtaan waxaana ugu wacan mas-uuliyad daro dhanka ma dhihi karno mas-uuliyad daro dhanka ragga waaye laakiin waxaa waaye ogaal xumi ka jirto gabadha maxaa mas-uuliyaadkeeda inaysan aqoonin in ay culeysyo badan saarato marka waxaa muhiim ah mas-uuliyad markii la dhaho mas-uuliyadda qofkaas nafsadiisa mas-uuliyadaa ka saaran shaqadiisa mas-uuliyadaa ka saaran familkiisana mas-uuliyadaa ka saaran marka mas-uuliyadda qof ay ku weyn tahay waa qofka saxda ah ee guur loogu talagalay laakiin qof khayr mas-uul ah oo noloshiisana waxba u qabanin naftiisana maxaa la dhahaye wax mas-uuliyad ka saareen familkiisa mas-uuliyadda ma aha lacag oo keliya ma aha mas-uuliyadda way ka weyn tahay sida hadda anaga u sheegayno kartida ayadana sidoo kale qof fadhiid ah gabar iska fadhiso oo dhib hadduu dhaco wax yar aan xalin karin calaacal badan maanta dhan doorka dhibbanad jilayso oo qof maanta oo dhan la dhibaa dhib un yaraantii waa lii dhibaateeyey hadda waa dhibanahay mar walba dhibay ka shakaysaa ayada dhibanaha waaye mar walba dhibka lagu sameeyo macnaha reason ayada ee sabab ku leedahay inay dhibkaas oga baxda ma hayso marka karti muhiim waaye qofka marka aad rabtid inaad nolol la wadaagtid because nolosha way adag tahay wayna sii adkaan doontaa ilmaa imaan doono mas-uuliyaadkaa badan doono waxaa muhiim ah qofka inuu karti leeyahay maxaa la dhahaa mas-uuliyadna yaqaano mas-uuliyad inuu yaqaano wixii loo igmaday inuu kasoo bixi karo wixii mas-uuliyaad oo qofkaas saaran qof walba qofka kale wuu ka duwan yahay gabadha mas-uuliyaadkeeda inay taqaano wiilkana inuu mas-uuliyaadkiisa yaqaano laakiin waa ku jecelahay jaceelaa laiskugu sheekeeyey gurigaa laisku imaaday jaceelku cunto ma noqonaayo
wuxuu u baahan yahay nolosha waxay u baahan tahay kala dambeyn iyo nidaam iyo mas'uuliyaadka in la kala qaato haddii taas meesha ka baxdane wax meesha sii socon doona ma lahan qodobkaas ayadana meeshaas uga bixi doona qodobkeena 7aad waa ixtiraam iyo tixgelin inuu qofka leeyahay waa qof adiga ku ixtiraamo familkaagana ixtiraamo yacni shakhsiyad qof ixtiraam yaqaano ixtiraamka hadaloo noqon karaa ficiluu noqon karaa nooc walbuu noqon karaa markuu yahay qofka qofku ixtiraamayo ixtiraam qof kasta ma samayn karo qof kasta wax wuu jeclaan karaa laakiin qof kasta wax ma ixtiraami karo marka iyadana muhiim ayay u tahay qofka aad dooranaysid inuu yahay qof muxtarim ixtiraam ah waxay kor u qaadaysaa adiga laftirkaaga karaamadaada iyo shakhsiyadaada laakiin qof aan ixtiraam lahayn dariska ceenaayo wadada qofka isku hor imaadaan isdagaalayaan adiga maadaama qofka nolol aa wadaagi doontiin labadiina karaamo way isku xiran tahay mar walbo sumcadda qofkaasna adaa kor u qaadi kartid adaan u ridi kartid maadaama nolol idinka dhexeyso marka waa muhiim qofkaas inuu yahay qof muxtarim ah ixtiraamkana yaqaano iyo tixgelinta qodobkeena ugu dambeeyana waxaa waaye qof aad ka heli kartid taageero iyo dhiirigelin noloshan maadaama ay tahay labada qof ugu muhiimsan oo iskugu dhow aa noqon doontaan mustaqbalka qofkaasi waa in aa noqdo qof taageero aa ka heli kartid taageerada oo keliya ma aha lacag waxay noqon kartaa hadal waxay noqon kartaa dareen ahaan nolosha maalin walba stress ay leedahay dhibaatooyin badanaa lala soo kulmaa marka labadiina mar walba qofkii culeys uu haysto inuu qofkan fahmi karo caawin karo taageeri karo dhiirigelin karo ahdaafta nolosha aad ka leedahay qof kugu dhiirigeliyo waad samayn kartaa waa yeeli kartaa intaas hadalka ee xataa wax weynay u dhigmataa marka qodobkaasina waa qodob aad iyo aad iyo aad muhiim ah maadaama aad rabtid qofkaasi inaad nolosha la wadaagtid marka doorashadaada hadday wanaagsanaato dhammaadkeedana way wanaagsanaan doontaa marka hore hadday doorashadaada khaldanaatana qaladaad badan way imaan doonaan marka see saas u dhicin qodobadan aan hadda kula wadaagay waa qodobo aasaasi u ah xiriir walbo iyo sidoo kale qof walba oo rabo in uu guursado maadaama furiinka uu nagu batay khalalaasada ee nagu badatay faamiladeena ee maalin walba isku dhegan yihiin waxaa ugu wacanaa dhihi karaa bilowgeeni oo aan si fiican looga fiirsan qiimeynteeni oo qaldaneed gabar ninka ka fiiriso inuu lacag leeyahay qurux badan yahay gaari cad haysto baawuur haysto waxyaabahan kaloo muhiimka ahna aanan ka fiirinin wiil asna sidaasoo kale gabar aad u qurux badan fiirinayo jir qurux badan leh waxyaaba oo aanan muhiim ahayn inay isku qiimeeyaan dhallinyaradeena waxaa u baahannahay marka qofka aa qiimeynaysid ha ku qiimeynin wuxuu ilaahay marka hore siiye oo asiga awood u lahayn qofkan inuu qurux badnaado jir qurux badan lahaado asi ma samaysanin waxaa u sameeyey oo sidaasi u abuuray waa ilaahay qabiilka oo ka dhashtay sidaas si lamid ah ase ma samaysan waa wax ilaahay oo ka dhaliyey awood uma lahayn doorashadiisa waxyaabaha muhiimka ah marka oo la rabo inaad qofka ku qiimeysid waxaa waaye wax uu asiga samaystay uu dadaalkeeda la yimaaday soona saaray akhlaaqiyaadkiisa qiyamkiisa qofnimadiisa shaqadiisa howlkarnimadiisa kartidiisa waxyaabahaasa qofka lagu doortaa because waxyaabahaas waa wuxuu abuurtay laakiin waxyaabaha kale uu ilaahay marka horeba siiyey sax waa ku dooran karta waxaa rabnaa waxyaabaha si ay khilaafaadka qoyska iyo dhibaatooyinka qoyska iyo furiinka uu noogu yaraado oo guryo xasilon loo abuuro maantayba ka bilaab waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad ka fiirinayso qofka aad ku qiimeynayso in ay noqdaan kuwii hadda aan soo sheegnay mar kale waa ku mahad celinayaa waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad like-ta noo saarto sheertana aad dhahdo sidoo kalena subscribe-ka youtube-ka iyo facebook-ba haddaa nagala socoto aad nagu soo biirto cashiradan iyo kuwo kale oo badanna insha allah waa idin soo wadaa wixii aragti ah iyo afkaar iyo waxyaabaha aad jeceshihiin in aan idiin soo gudbiyana waxaad igula wadaagi kartaan qaybta commentiga insha allah waxaan ku dadaali doonaa sida ugu wanaagsan ee aan kusoo gudbin karo dhanka aqoonteeda iyo wixii aan u leeyahay khibradba inaan idinkula wadaago mar kale iyo mar kale mahadsanidin